السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاو برنامجكن waxaan ka hadli doonaa taariikh nololeedka sheekha u dhashay dalka Hindiya Dr. Zakir Naik. Haddaba daawadayaal, sheekhu waxa uu dhashay sanadkii 1965 waxaana ku dhashay degmo ku taala Bombay oo ay ku badan yihiin muslimiintu, taasoo lagu magacaabo Dongari. Haddaba daawadayaal, sheekhu waxa uu ka soo jeedaa qoys dhakhaatiir ah. Aabihii waxa uu ahaa dhakhtar, walaaladiina waxay ahaayeen dhakhaatiir. Sidoo kale isaga laftiisu waxa uu ahaa dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud, waxaana takhasuskiisa u diyaariyey jaamacad ku taala dalka Hindiya oo lagu magacaabo Tobiwala. Haddaba sheekhu waxa uu aasaasay Maxadka Cilmi Baadhista Islaamka sanadii 1991. Sidoo kale waxa hore ugu furnaa iskuul lagu barto culuumta diinta Islaamka oo ku yaala Bombay. Iskuulkani waxa uu ka kooban yahay laba qaybood. Qayb waxa wax ku barta hablaha, qaybna waxa wax ku barta inamada. Waxaana uu ka kooban yahay hal dabaq. Dabaqa sare waxa wax ku barta gabdhaha, halka dabaqa hoosena ay wax ku bartaan inamadu. Waxaana astaan u ah gabdhuhu waxay qaataan xijaab madow, inamaduna waxay xidhaan koofiyado, taasoo ay mamnuuc ka tahay sida ay diinta Islaamka inay isdhex galaan hablaha iyo inamadu. Inkastoo markii dambe lagu eedeeyay in uu ku faafiyo fikirka xagjirka ah, dadka waxa ku bartaana ay yihiin dad xagjiriin ah, sidaa la ajligeed waa la xidhay iskuulkaas. Intaa kadib sheekhu waxa uu aasaasay Maxadka Cilmi Baadhista Islaamka, kaasoo uu aasaasay sanad 1991. Kadib waxa uu faraha ka qaaday shaqadii uu hayay ee dhakhtarnimo, waxaana u go'ay faafinta qowlka Eebe, taasoo ka dhigtay dayax ka soo ifbaxay dhammaan culimada Islaamka ee dunida. Haddaba sifooyinka sheekhu waxaa ka mid ah inuu isku darsaday aqoon diimeed, mid maadi ah, iyo welibana aftahanimo oo Allah ku galaday, taasoo uu kaga dhaadhicin karo message-ka ama fariinta uu xambaarsan yahay. Cid walba ha haysto diin Islaam, hana haysto diin kale, amaba sayuusan aaminsanayn wax diinaba, laakiinse si fudud ayuu uga dhaadhicin karaa. Waxaa kaloo intaa u dheer, waxa uu leeyahay aqoon uu u leeyahay diimaha kale ee aan ahayn diinta Islaamka, taasoo ka dhigta in uu mawjado ku kiciyo cid wal oo kaga hor timaada dood diimeed. Haddaba taasi waxay sababtay inay colaad badan u qaadaan dadka aaminsan diimaha kale, taasoo u arka cadow ku yahay diimahooda ay aaminsan yihiin, kuwaasoo kula jira dagaal aan kala go' lahayn. Waxaanay ku eedeeyaan doodaha diimeed iyo welibana muxaadarooyinka kala bixinayo dacallada dunida si uu u gaarsiiyo qowlka Eebe adduunka, ayaa iyagu waxay u arkaan inuu halis ku yahay dadka ay matalaan amase ay u yihiin hogaamiye diimeedyada. Taas ayaa keentay sheekha in eedeyn fara badan loo soo jeediyo, taasoo lagu eedeeyo in uu faafinayo fikir xagjirnimo ah, taasoo maxkamad lagu saaray, haddana dacwad uga socoto. Dacwadaasoo lagu eedeynayo weerar ka dhacay, weeraradaasoo ay geysteen dad argagixiso ah, ayaabaasi sheekha iyo qowlka Alle uu faafinayo si afka ooda looga saaro loo sameeyey eedo uusan gelin, shaqana uusan ku lahayn. Haddaba Sheekh Zakir Naik waxa uu ka qalin jabiyey jaamacad ku taala dalka Hindiya, kuna diyaariyey takhasuska cudurrada guud. Maadaama uu yahay sheekh isku darsaday cilmi diini ah, mid maadi ah, aqoonna u leh diimaha ay haystaan bulshooyinka kala duwan ee caalamka ku nool, taasi waxay u sahashay inuu si fudud u soo jiidan karo cid kasta oo dhageysata khudbadihiisa xambaarsan xikmadda. Taas ayaana lagu qoonsaday sheekha, waxaanay ku tilmaameen inuu yahay xagjir. Haddaba daawada, su-aashan adiga ayaan kuu dhibay. Caalamka waxaa ka jira siduu Allah quraankiisa ku sheegay dad isaga caasiyey iyo dad rumeeyey. Labadaas qaybood alaaba iska soo horjeeda ayaa waxay ku macneeyeen qolada Allah caasiday qof kasta oo ku dhawaaqa kelmadda xaqa ah ama u dadaala faafinta diinta Islaamka inuu yahay xagjir. Walow iyaguba ay leeyihiin dad xagjir ah, balse eedda ugu weyn ee loo soo jeediyo Sheekh Zakir Naik ayaa ah in muxaadarooyinka uu soo jeediya ay yihiin qaar ay ku dheehan tahay xagjirnimo, kuna beeraya dhalinta fikir mitidnimo. Laakiinse xaqiiqdu sidaas ma aha, waayo khudbadaha iyo muxaadarooyinka sheekhu marna kama hadlo wax kala fogeynaya mujtamaca dunida ku wada nool, diintay doonaan ba haystaan. Laakiinse aragtida kale ee ka soo horjeeda ayaa markii ay ku guuldaraysatay inay u jilbi dhigaan ama ay u babac dhigaan kartidiisa iyo welibana balaaqada uu Allah ku manaystay, ayaa waxay u maleegaan qoollo si ay u joojiyaan dacwadda uu wado. Sheekhu Ala waxa uu ku soo jeediyaa muxaadarooyinkiisa luqadda Ingiriisiga, taas oo keentay inuu hanto dad badan oo aan ahayn Islaam, kuwaasoo ku qancay xaqiiqooyinka iyo cadeymaha uu mar walba soo bandhigo. Tiro iyo cadad toona ma leh inta uu sabab u noqday inay qaataan diinta Islaamka. Haddaba taasi waxay wejigabax ku noqotay diimaha aan ahayn diinta Islaamka, kuwaasoo adeegsaday tab iyo xeelad walba ay ku joojin karaan barnaamijyada uu ka wado dunida dacaladeeda, kuwaasoo meel kastaba kaga furay kiisas iyo dacwado ay ku eedeynayaan inuu yahay xagjir amase uu taageero fikirka xagjirnimada ah, balse isagu taamaq wuxuu si aan gabasho lahayn u difaacaa dhibaatada loo geysanayo ummadda Islaamka, taasoo si badheedh ah uga hadlo. Haddaba mowqifyada uu aaminsan yahay iyo aragtidiisa waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka ku xiga haddii Allah awoodda la ogolaado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.